dhigay annagu sidaad ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto la socoto bariyahan oo dhan waxaan wada xaajood kula jirnay dawladda waxaan kala hadlaynay qadiyad badan oo ay ka mid ahayd qadiyadda banaanbaxa waa ogtihiin heshiisaan ku gaarnay banaanbaxa midowga murashaxiinta inuu qaban qaabiyo dawladduna doorkeeda dastuuriga oo waajibka lagu leeyahay xukuumaddan ay qaadato oo ah in ay amniga sugto banaanbaxayaasha amnigooda inay sugto waa ku heshiinay waa ku ballanay meeshiyan ku ballanay waxaasoo dhan dood dheer oo waxay soo martay maalin walba meel laga doodaayo wax laga doodaayo meeshay diideen meel oo lagu xiroonayo isbartiibe waxbay sheegeen duruufaha jira covid-ka awgood dadku in meel lagu xireeyo annagana waa nala khaldantay meel bannaan oo open air oo dadku ay kala durgi karaan inaan geynaan go-aanka waa ku adkaysana way aqbaleen waa ku heshiinay daljirka daahsoon in banaanbaxa lagu dhigo sidaas ayadoo ay taagan tahay oo amnigii annaga aan saas ugu wareejinay annagana qabanqaabadeenna caadiga aan ku jirno maanta waa ka warqabtaan daljirka waa xiran yahay ma aha daljirka keliya magaaladoo dhan maa xiran number 4 oo hadda intaa noo jirta ka bilaaw ilaa maxaan ku yiraahdo waxaad geysaa magaalada waqooyiga muqdisho meesha ugu dambaysa magaalada waa xiran tahay ciidana lagu daadiyay wadooyinka la xiray daljirka ciidan badana la dhooba xiraaba laga dhigay ciidana daljirkii banaanbaxa lagu qaban qaabina laga dhigay marka dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan u sheegno dawlad meeshan dadka jooga xaaladoodu waa sidaas dawladnimayna dhowreyn dastuurayna dhowreyn qawaaniin kalena dhowreyn ballama iyo heshiis lala galaysan dhowreyn mar walbana been inay sheegaan maalin ay yiraahdaan nin ma daljirka daasoo inta taga hadlay maalinta dabana ma naqaa waxay sheegi doonaan haddana waxay rabaan inay sheegaan waa nasiib darro weyn oo na haysato dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa marka inay fahmaan laba arrimood qodob waaye meel qof banaanbaxayo tabeelo wato codkiisa inuu cabiro rabo dastuurkan uu ogol yahay ninka ay dhibayseen oo adkaysan karina diidaayo ee jidadka xiraan militariga ciidamadii iyo wixii booliisku wixii dhan banaanka u soo dhiganayo yaa biri dadka Soomaaliyeed inta soo dhaqaaqaan ayagoo xor inta isku yimaadeen codkooda si xor ay meel ugu ridayaan macnaha ay labadaas arrimood aan rabaa dadka Soomaaliyeed inay isbarbar dhigaan waa qodobka kale ciidamada maanta wadooyinka Muqdisho taagan iyo qalabka ay haystaan ee ay wadooyinka ku xireen ay ku taagan yihiin u haystaan hal la fahmo gabar iyo wiil Soomaaliyeed oo banaanbaxay loo soo dhigay inay u haystaan qatarta shabaab dalkan uu ku hayna meeshii taagantaa ogtiin shabeellada hoose shabeellada dhexe hiiraan galgaduud gado jubbooyinka meel aanu maanta shabaabkii tahdiid aanu ku hayn oo aanu saas u sii socon malaha jowhara tahdiid ku jirto dhuusamareebaa ku jirto intii ka sokayso dhammaa ku jirta maxaan ku yidhaha jubbooyinka iyo meel walbaa ku jira gadaa ku jirta oo ciidamo fara badan jooga aan laga qabanin ciidankii loogu talagalay beebayaashii iyo qalabkii loogu talagalay wadooyinka Muqdisho waa kuwa dhex taagan madaxweynihii hore ee weli ka raaraca maxaan ku yiraahdaa xukunka iyo talada qarka uga dhaganay deyla meesha maanta maray waa intaas dadka Soomaaliyeed inay fahmaan aan rabnaa annagu marka sida gudoomiyaha u sheegay banaanbixii berri dhici lahaa waa baajinay dibaan u dhignay maalinta kama tanasulin mana ka tanasulin waa la qabanaa banaanbixii maalinta la qabanayo ku habboon tahay waa soo sheegaynaa amnigana annaga suganayno ilaan wax kale noo dhiman ma laha haddaan dhahna amnigiina waa kana suga aan jidkii nabad ku soo marno taas ay ka dhalatay hadda inaan banaanbixin dastuurka aan u leeyahay inaan ka tanasulno maaha laakiin amnigeennana markaa sidaan u suga karnay ciddii aan kaasho karnay inay nala sugto amni inay nagala shaqayso ugu dambeynta waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo saraakiisha ciidamada qalabka sida waxaan rabaa inaan u sheego war qof uma shaqaysiin qof idinma qoran dawladda Soomaaliya u shaqaysiin dastuurka idin damaanad qaaday shaqada aad haysiin iyo waajibaadkiina iyo awoodihiina iyo xuduudihiina ay ku xadidan yihiin sarkaalkii maanta meeshaas u taagan gabar Soomaaliyeed iyo wiil Soomaaliyeed oo nabad oo walaalkiis ah walaashiis ah
inuu hor istaago oo xabad ku rido dib u fikiraan leenahay gadaal u fiirso dib u fikir waa khalad laguguma amri karo qalad sharci darro laguguma amri karo dastuurka inaad ku cayaartid ood ku dheedheeshid laguguma amri karo gacan ku dhiigle inaad noqotidna laguguma amri karo gacan ku dhiigle inaad noqotid laguguma amri karo saraakiisha ciidamada hogaaminaysa waxaan leenahay yaraaw weynaaw sarkaal hoose noqo sarkaal sare sarkaal xigeen noqo askari qoristo jidka taagan noqo waxaad samaynaysa ka fiirso hebelaa iilahaay hadhow iyo hebelaa ay ahayd kuma anfacayso mustaqbalaad leedahay weliga aad joogi doontaa dalkan iyo dowladnimadiisa u joogtaa taariikhdana meel xun ha ka gelin rikoorkaaga professionka ee xirfadeed ee ciidanne wax xun ha gelinin dad bannaan baxayow xabadeeyey shalay weligaa kaa hari mayso ogow haddaad 100 sano cimrigaaga alla gaarsiiya hataa wixii sharciga ilaali dastuurka ilaali qawaaniinta dhan dalkan ilaali deganaanshaha iyo amniga muwaadinka cashuurtiisa aad ku nooshahay ilaali yaanan khalad ugu adeegsanin fariintaas kaba dambaystaana ciidanka iyo saraakiishoodan u dirayna dadka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho jooga gaar ahaan iyo kuwa meel walba jooga ee taageerada iyo maxaan ku rahaa ku kalsoonida dastuurka iyo xorriyaddooda muujiyey waxaan leenahay waa mahadsantihiin waa dadaasheen dadaalka weli waa socdaa xuquuqda dastuuriga ah lagama tanaasulayo waa loo taagan yahay maanta berri madaxweynihii hore xilkiisu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo ma hor istaagi karo intuu xilkiisu jirayna dastuurku tumashuu ku jiray hadda uu ka degayna waxaad barata waa balaayada la yiri weli waa kusii raaraca waana kusii dhegan yahay dadka soomaaliyeed khatarta dalka uu ku jiro ha fahmaano khatarta dalka uu ku jiro aan maalin walba ka gabanayno oon ka jirnaxayno oo aan gadaal uga sii durkayno ha gabadaan ha fahmaano ha nala gartaan gacmahayna iyo codkaynaana ku celi karnaa codkeennaan ku celi karnaa xabado uma baahnin madaafiic inaan qaadano uma baahnin in laysdilo uma baahnin codkeennaan ku celi doonaa maalinta dambe oo banaanbaxa la iclaamiyo maalintaasaa noo ballanayaan qofi soo harin waxa socda waa ujeedaani waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu